weli ma aragtay mase maqashay garoon diyaaradeed oo biyo dul yaalla kaasi oo iska sabaynaya isla markaana biyaha baddu ay dhaqdhaqaajinayaan geesinimo ma haysaa oo diyaaradda tigidh ma u goosanaysaa si aad biyaha madax ugu degto haddana waa yaabay airport diyaarado waaweyn ay ku soo degayaan oo biyo dhex yaal ama biyo dul sabaynaya sidee la isugu halayn karayaa iyadoo la og yahay in garoomadii diyaaradaha ee dhulka ku oolaa qaarkood la dhaliilayo sida ay ammaan ay u yihiin kaba soo qaad in xagaagan dhowaan la gelayo aad u buseesho booqashada Japan weliba magaalooyin iskuma jiraane magaalada dhaldhalaalka badan ee Osaka oo aan ka dhicin Tokyo tartankana kula jirta halkaasi waxaa ku yaal mid ka mid ah garoomada diyaaradaha adduunka kuwa ugu mucjisada badan waa gegidda diyaaraduhu ku degaan ee Kansai International Airport oo ku yaala jasiirado gacanta lagu buuxiyey oo mataana ah isla markaana laga sameeyey garoon diyaaradeed oo caalami ah waxa uu ku kacay 21 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxyaabaha la diiwaan geliyey ee waalida ah waxa ka mid ah kolka diyaaraddu ay degto ayaa mid ka mid ah shaqaalaha diyaaraddu inta ay dadka soo hor istaagto ku oranaysa waan ka xunnahay hadda diyaaradda lagama degi karayo waayo waxa kacsan mawjadaha badda mana aha ammaan halkan aynu dul taagannahay waa badweyn markaa kadib ayaa dadku is eegayaan oo is oranayaan wixii aynu soo raacnay maxay ahaayeen ma doonni baynu la soconnay mise diyaarad weliba waxaa ugu sii daran qofkii ay arrintani ay ku cusub tahay oo ka dhaaran doona in uu mar dambe bad dusheeda uu ku dego bishii January sanadkii 1995 Japan waxaa gilgilay dhulgariir xoog leh oo ka dhacay meel u dhow isla garoonkan nasiib wanaagse wax saamayn ah kuma yeelan oo waa ka badbaaday burburkii sababta oo ah injineerada dhisay ayaa u qaabeeyay qaab uu garoonka dhaqdhaqaaq iyo leexleexasho uu samayn karo waxaa jirtay dhismayaal waaweyn oo dhulka galay kuwaasi oo aan wax badan ka fogeyn garoonka laakiin isla garoonkan hal muraayad ay kama jabin maxaa yeelay markii horeba biyo ayuu dhex oolaa wuuna sabaynayay bishii Sebtembar 1998 isla deegaanka uu airportkani uu ku yaalo waxaa ku dhuftay duufaan culus oo ilbiriqsigii soconaysa 60 mitir mar kale ayuu ka badbaaday oo waxba kuma noqon laakiinse waxay masiibo ay ku dhacday mar kale Sebtembar 2018 waa markii ay ku dhufatay duufaantii Jebi waa markii uu garoonkani uu joojiyey shaqadii sababta oo ah heerka biyaha ayaa kor u kacay oo soo gaaray dhabbihii diyaaraduhu ay ku urti jireen ilaa ay biyuhu ay gaareen matooradii diyaaradaha inkasta oo shaqadiisii qayb ahaan ay dib u bilaabatay maalmo kadib war aan wanaagsanayn ayaa ka soo baxay injineerada ugu waaweyn Japan kuwaasi oo sheegay in garoonku uu si tartiib ah uu u degayo oo biyaha uu u quusayo taasi waxa u dheer heerka biyaha badda oo kor u sii kacaya kuwaasi oo odoriskii ugu dambeeyay uu sheegayo in garoonku uu gebi ahaanba biyaha uu ka hoos mari doono marka la gaaro sanadka 2056 qaar injineerada ka mid ah ayaa sheegaya in biyaha soo galaya garoonku ay yaraan doonaan sidaa daraaddeedna uu sii shaqayn doono dibna loo casriyeyn doono inkasta oo dhagax tiro badan iyo shub lagu wareejiyey garoonka hareerihiisa oo idil iyo dhulka uu ku fadhiyo si aan biyuhu u soo jiirin laakiinse weli waxaa jirta cabsi si kastaba ha ahaatee dadka qaarkii ayaa ku adag in ay isku aaminaan ku degista garoon sabaynaya oo biyo dhex yaal iyagoo oo ku soo degaya diyaarado waaweyn oo aad u culculus halka qayb ka mid ah shacabku ay weli ay ku raaxaysanayaan ku degitaanka garoonbiyoodka macmalka ah ee gacanta lagu sameeyey ee biyaha badda dul heehaabaya Japan waxa ay caan ku tahay duufaano iyo dhulgariir iyada lafteeda ayaa ah jasiirad aan sidaasi u sii weyneyn Japan waxa ay awood ay u yeelatay in ay kaabayaal dhaqaale sida garoomo ay ka samaysato biyaha dushooda hadda ogow dhulka Japan 67% waa la xafiday si bay'ada loo ilaaliyo waa kaymo mana laga waayin dhul garoon laga dhigto dadka Jabaaniiska ahi waxa ay degan yihiin 3% dhulkooda iyaga waxa kala culus xayawaanka ku baaba'aya ee qaarna barakacayaan haddii dhulka la geedo gooyo oo bannaan laga dhigto waa kuwa maanta garoomada ka dhisanaya badda dhexdeeda si loo xafido beriga dhulka Soomaalidana ma leh dhulgariir marka laga reebo wax yar oo marmar ka dhaca Awdal iyo Djibouti kama dhacaan duufaano waaweyn oo waxaaqa sanad kasta sidaa oo ay tahayna berigiina waa la baabi'iyey oo keymihii boor iyo habaas ayaa laga dhigay garoomana inoogama dhisna oo waa laba garba seeg nasrigase lagama quusto waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan Bulqaas Media ayaad nagala socotaan fadlan
haddii aad ku cusub tahay beejka Bulqaas Media haylaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii se aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale ha naga ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax uga bartaan sidoo kale si aad noogala qayb qaadataan socodsiinta iyo kor u qaadista barnaamijyada Bulqaas Media Stars ayaad noo soo diri kartaan oo nagu caawin kartaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska aad ayaad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu